Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkan waxaynu ku eegi doonaa noocyada discountiska iyo sidoo kale sida loo sameeyo contra entry-ga si aynu ugu sameyno business adjustment policy-yada lagu sameeyo receivables-ka iyo payables-ka. Fadlan subscribe tahay laawina gambaleedkana inoo fura si aanay idiin dhaafin fiidiyoyada dambe. Ka ugu horeeya ee aynu soo qaadan doonaa waa trade discountiska. Trade discountiska waxaa la sameeyaa waqtiga uu iibku dhacayo markaa. Trade discountiska waxaa loo sameeyaa in lagu ilaaliyo customer-ka la doonayo in uu iibsado alaab quantity-geegu uu aad u ballaadhan yahay oo badan. Trade discountiska waxaa toos looga jaraa oo looga yareeyaa net amount-iska sales price-ka inta aan la siin invoice-ka customer-ka. Waxay noqonaysaa sales-ka oo laga jaray trade discountiska oo ku siin doonta net amount-iskii sales-ka. Waxaanad xasuusataan markii aynu soo maraynay sales daybookiska iyo purchase daybookiskaba waxaynu ku soo aragnay net sales tagas iyo gross amounts. Markaa trade discountiska waxa aynu markii hore ka soo jarnay net amount-iskeeni. Markaa trade discountisku hawl badan ma yeelanayo marka loo eego contra entry-ga iyo discountiska kale. Waayo waxaa trade discountiska laga soo jaray net amount-iska inta aan lagu record garayn daybookiska. Haddaba waxay wax isbedeli doonaan marka aynu samaynayno settlement discountiska. Settlement discountiska waxaa la sameeyaa waqtiga uu customer-ku bixinayo lacagta lagu lahaa. Settlement discountiska waxaa loo sameeyaa si uu customer-ku ugu bixiyo waqti gaaban lacagtii lagu lahaa si uu u helo discount badan. Mararka qaarna waxaa loo sameeyaa marka ay wada bixiyaan invoice-ka oo dhan waqtigii ay wax iibsadeen. Tusaale ahaan, customer ayaa inoo yimid waxaynu siinay invoice gross amount-iskiisu uu yahay $100. Waxaynu customer-kii ku nidhi waxaad ku bixin doontaa $100 30 cisho. Waxaana sidoo kale xagga hoose ee invoice-ka customer-ka uga qornay haddii aad ku bixiso 14 cisho waxaa laga jari doonaa 2% invoice amount-iskii ama gross amount-iskii. Taana customer-ku ikhtiyaar buu u leeyahay oo waxay ku bixin karaan 30 cisho ama waxay ku bixin karaan 14 cisho si ay u helaan 2%kii discount-ka ahaa ee la siin doono. Waxaana customer-iska loo siiyaa si looga fogaado in ay nagu timaado dayn inaga raagta. Marka waxaynu u sameynaa settlement discountiska si uu customer-ku uu ugu bixiyo waqti hore lacagta lagu leeyahay. Problemka keliyata ee uu leeyahay settlement discountisku waa in aynaan garanayn waqtiga uu customer-ku doonayo in uu ku bixiyo ma waxa uu ku bixin doonaa 14 cisho bise wuxuu ku bixin doonaa 14 cisho ka bacdi ee waqtigii loo qoondeeyay in uu ku bixiyo ee ahaa 30 cisho. Ma garan karno inta ay inugu keeni doonaan customer-iskeenu in uu customer-ku yeelan doono discount iyo in aanu yeelan doonin discount. Haddaba waxaynu doonaynaa in aynu journal entry-gan ku boos garayno discount amount-iska ka oo aynu u samayn doono customer-ka marka aynu ka helo cash-ka customer-keena. Haddaba settlement discountisku waxa uu u kala baxaa laba qaybood oo kala ah discount allowed iyo discount received. Waxaanaynu marka hore eegi doonaa discount allowed. Markaa discount allowed-ku waa abaalmarin loo sameeyo customer-iska waqti ka yar ku bixiya
intii hore loogu cayimay. Marka discount allowed-ka waxaynu siinaa customer-ka. Haddaba maxaynu samayn doonaa imika? Waxaynu samayn doonaa double entry-gii discount allowance-ka. Marka aynu cash-ka helno, waxaynu ogaan karnaa in customer-ku uu leeyahay discount iyo in aanu lahayn discount. Journal-kanina wuxuu dhici karaa haddii uu customer-ku bixiyo $100. Taasi run ahaantii waa wax fiican. Laakiin haddii uu bixiyo $98 oo uu 2% ka goosto kuna bixiyo 14 cisho ee invoice-ka lagu cadeeyay, markaa waxaynu ku samayn doonaa double entry discount-kii aynu u ogolaanay customer-ka. Markaa waxaynu debit garayn doonaa account-ka discount allowance. Taasina waxay kordhin doontaa expenses account-keena. Markaa haddii aynu ka helno lacagta customer-keena, waxaynu ognahay in aynu ka helayno kaliya $98. Dabcan waxaynu debit garayn doonaa $2 ee ka dhiman lacagtii aynu ku lahayn customer-keena. Waxaynu ku balance garayn doonaa dhinaca debitka. Markaana $2 markaynu debit garaynayno, waxaynu oran doonaa discount allowance expenses. Sales revenue-gii aynu sugaynay ma wada heli doono ee waxaa laga goyn doonaa $2 ee discount allowance expenses-ka ah. Discount allowance expenses-ka waa expenses waxaana laga jari doonaa gross profit-ka oo hoosta laga dhigi doono statement of comprehensive income-keena. Waxaa credit-kana tagi doona trade receivable control account. Sidoo kalena waxaa la geyn doonaa subsidiary receivable ledger-ka oo ah individual customer account si loo arko in customer-kan la siiyey discount. Waxaanaynu oran doonaa trade receivable si aynu uga yarayno amountiskii assets-ka ahaa ee aynu ku lahayn customer-ka. Sida ay noqonayso record garaynteedu iyada oo numbers ah iyo sida ay u shaqayso waxaynu ku arki doonaa cash receipt book. Marka aynu helno cash, waxaynu gelinaa cash receipt book. Marka aynu ka helno cash-ka customer-keena, waxaynu record garayn karnaa discount-kii aynu samaynay. Laakiin waa in aynu samayno double entry haddii uu shuruudii buuxiyey customer-ku uunu xaq u yeeshay in loo sameeyo discount. Casharka ku xiga wuxuu noqon doonaa opposite-ka discount allowance-ga oo ah discount receiving. Waad mahadsantihiin.